waxaa la soo gabagabeeyay kulamada heerka guruubyada tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir 2019 waxaa la ciyaaray 29 kulan oo ka mid ahaa kulamada heerka guruubyada waxaana ka soo baxay natiijooyin cajiib ah kulamada heerka guruubyada inta lagu guda jiray waxaa la iska dhaliyay 58 gool waxaana laba ka mid ay ahaayeen rigoorayaal ama gool kulaada waxaa gool dhalinta hogaaminaya Maxamed Xasan Ibraahim oo ciyaara warta nabadda waxaana uu ku hogaaminayaa 3 gool heerka guruubyada inta lagu guda jiray kulamada heerka guruubyada tartanka degmooyinka gobolka Banaadir waxaa la bixiyay 74 calaamada jaalaha iyo 3 calaamada gaduud ah degmooyinkana waxay isugu aadeen sidaan Yaaqshid waxay la ciyaari doontaa degmada difaacanaysa tartanka degmooyinka kubadda cagta ee gobolka Banaadir ee waa bari hodan iyo xamar jajab waa ay ballansan yihiin Shibis waxay la ciyaari doontaa Dharkeenley halka degmada Shangaani ay ballansan yihiin degmada Hilwaa haddaba daawade degmooyinka soo haray degmada u rajaynaysa inay qaado koobka degmooyinka gobolka Banaadir ee kubadda cagta